بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا تيسير من كل عسير فإن ذلك على الله يسير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. باب في الله halkan waxaynu ka gudageli doonaa darsigeenii shanaad kitaabkii al-isticdaad liyowmi almacaad. waxaanu kusoo guda jirnay oo weli aan kusii guda jirnaa baabkii kitaabka ee labaad ee baabu thulaathiy saddexda xigmadood ka koobna. wacan yaxyaa waxaa laga wariyey binu mucaadin raximahu allahu tacaala raximahu allahu calayh wuxuu yidhi tarku dunyaa adduunyada oo laga taga kullihaa dhammaanteed laga tago akhdu laakhirati aakhare oo la qaato weeye kullihaa dhammaanteed. faman taraka ruuxii ka togahaa adduunyada kullahaa dhammaanteed akhada wuxuu qaatay weeye haa aakhire ayuu qaatay kullahaa dhammaanteed. waman ruuxii akhadahaa adduunyada qaata kullahaa dhammaanteed tarakahaa aakharadii ayuu ka tegay weye kullahaa dhammaanteed. fa akhduhaa aakhare qaadashadeeda fii tarkihaa adduunyada ka tegisteeda ayay ahaatay. wa tarkuhaa aakharada ka tegisteedana fii akhdihaa adduunyada qaadashadeeda ayay ahaatay. wacan ibraahiim binu adham waxaa laga wariyey raximahullaahu allah u naxariistee annahu qiila waxaa layidhi lahu asiga bima wajadta zuhda zaahidnimada maxaad ku haleeshay. kaana suldaanan buu ahaa baa layidhi fii beladihi fataraka asaldana waan gartay wajtahada fi lcibaada fii makkata wa hayriha. waxaa layidhi suldaan buu ahaa beledkiisa suldaan buu ahaa wuu iskaga tegay saldanadii iyo madaxnimadii wuu ka tegey wuu dadaalay cibaado ayuu ku dadaalay maka dhexdeeda iyo kayrkeedaba. wa fi risaalati alqushayriy baa waxaa ku sugnaa huwa abuu isxaaq binu ibraahiim abuu isxaaq ibraahiim binu mansuur ayaa la odhanayay. magaalada balqa ayuu ka soo jooday aabbihiina boqor ayuu ahaa. fa kharaja yowman maalin buu baxay yacnii isagoo bursanaya dawooco ama bahalkan loo yaqaano bakeyle isagoo yacni cayrsanaya oo gaaran raba ayuu baxay. wa huwa fii talabihi yacni wuu dalbayayoo wuu cayrinayay. fahatafa bihi haatifun gambaleel waxbaa u yeeray waxbaa dhawaaq buu maqlay. yaa ibraahiimu alihaadaa khuliqta am bihaadaa umirta. ibraahiimow bakayla cayrin miyaa lagu abuuray ama inaad bakayla cayrisa miyaa lagu amray. huma hatafa bihi aydan min qarbuusi sarjihi yacnii maxayda koorihiisa agtiisuu kalaha iyo haddana mar kale looga qayliyayo waxaa layidhi wallaahi maa lihaadaa khuliqta walaa bihaadaa umirta. war bakayla cayrin laguma abuurin bakayla inaad cayrisana laguma amrin. fanasala can daabbatii daabbadiisii moor baa ka nool daabbadii buu ka degay. wasadaqa raaciyan liabiihi aabbihii yacni raaci iska lahaa ayuu la kulmay addoon aabbihii u lahaa ayuu la kulmayoo fa akhada jubbatahu liraaci min asuuf yacnii jubbad uu watay ayuu ka qaatay waalbasaha wuu xirtay wa acdaa'uhu asigii meedkii maxay raacigahaabaa wuxuu siiyey farasahu fardihiisii iyo wamaa macahu wixii la jirkiisa ahaaba iskugu daray. huma inahu dakhala albaadiyata baadiye ayuu galay. huma dakhala maka ayuu galay. wa saxiba bihaa maka wuxuu kula saaxiibay sufyaan athawriy waalfudayl ibnu ciyaad ayuu kula saaxiibay. wa dakhala shaam ayuu galay. wa maata bihaa iyaduu ku dhintay. wuxuuna cuni jiray baa layidhi waxay gacantiisa kasbata ayuu cuni jiray wax kaloo dhan iska joojiyey. marka sheekhaas weyn ayaa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi warsaahidnimada maxaad ku heshay baa layidhi. qaala wuxuu yidhi
bihalaathati ashyaa'a saddex shay baan ku helay buuri. ra'aytu lqabra qabriga ayaan arkay muuxishan xaal uu yahay yacni mid cidlo ah, walaysa macii mu'nisun mid iwehlinayana uusan igu wehlinayn, halkaas uusan ila joogin noo sugnaan. wa ra'aytu waxaan arkay buu yidhi طariiqan طawiilan waddo dheer baan arkay buu yidhi, walaysa macii zaadun sahayna ma wato. wa ra'aytu ljabbaara waxaan arkay buu yidhi allaha jabbaarka qaadiyan xaal uu yahay yacni alla kala xukumaya addoomihiisa, walaysa lii xujatun xujana ma haysto. wa can sufyaan athawriyi waxaa laga wariyey raximahu llahu allah u naxariistay annahu su'ila waxaa la weydiiyey can ilunsi billaah ilaahay la weheshto tacaala sareeya maa huwa ilaahay oo la weheshto maxay tahay baa layidhi. faqaala wuxuu yidhi allaa tasta'nisa waa inaadan weheshanin bikulli wajhin sabiixin weji kastaoo qurxoon, yacni weji kasta oo qurxoon markaad aragto waa inuuna maxayday jecel midkaan yacni leexashaad u leexanaysa uunu kula tegine wax kastoo adiga maxayday ishaada iyo hortaada taaganoo qurxoon alla maxabadiisa waa inay kula weyn tahay, oodan waxaan kale ku mashquulin. walaa bisawtin طayibin yacni sawt qurxoon ama macaan waa inaadan wehel ka dhiganin. walaa bilisaanin fasiixin carab fasaaxo badanna waa inaadan wehel ka dhiganine waxaanoo dhan markaad aragto ama ay kaa hor muuqdaan waxaa weeye maxabada ilaahay baa kaala weyn. maxabada ilaahay wax kale oo yacni maxay ahayday ku hilmaansiin karo ama aad ku hilmaamaysaba waa inaysan dhicin waaye ayna jirin. wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma allah ka raali noqdee annahu qaala wuxuu yidhi azuhdu zuhdiga halaathatu axrufin saddex xaraf waaye, zaayun wahaa-un wadaalun. azaayu zayda zaadun waa sahay qaadasho limacaadin maalinta aakhara loo sahay qaato. walhaa-u ha'dana hudan liddiin diinta oo lagu hanuuno wa. waddaalu daalkana dawaamun waa in la daa'imo weye cala daacati daacada waa in la daa'imo. wa qaala fii mowdicin aakhara boos kale ayaa wuxuu ku yidhi azaayu zayda waan gartay tarku ziinati isqurqurxinta oo laga tago wey. walhaa-u ha'dana tarkul hawa hawada oo laga tago wey. wadaalu daalkana tarku dunya addunya oo laga tago. wa qaala xaamid allaqaafi waxaa laga wariyey raximahu llahu annahu ataahu rajulun rajul baa u yimid oo faqaala lahu wuxuu yidhi uusinii ii dardaaran. faqaala wuxuu yidhi ijcal lidiinika khilaafan ka khilaafi lmusxaf, yacni diintaada gal u samee musxafka galkiisa oo kale ah. qiila lahu waxaa la yidhi oo la weydiiyey mar kale maa khilaafu diini diinta galkeeda waa maxay sheekh xaamidow. qaala lahu kii saa'ilkaa wuxuu ugu jawaabay oo yacni uu ku yidhi waan gartay tarkulkalaami hadal oo laga tago weye ilaa maa laabudda minhu waxaan laga maarmaynin ma ogin. adduunyadaadii nolosheedii aad ku gaarayso ama aakhiradaadiiba aad ku gaaraysa ma ogin inaad ku hadlaysa shaygaas aan laga maarmaynin ma ogin. hadal kaloo iska maalaa yacni waa inaad iskaga tagto. wa tarku dunya adduunya oo laga tago wey ilaa maa laabudda minhu wixii aan laga maarmaynin inaad ka qaadanaysa ma ogin. wa tarkulmukhaaladati annaasi dadka dheehidooda iyo dhexgalkooda ood ka tagta wey ilaa maa laabudda minhu waxaan laga maarmaynin ma ogin. uma aclam agow anna asla zuhdiga asalkiisa alijtinaabu ka dheeraasho weeye canilmaxaarimi maxaarimta laga dheeraado kabiirahateeda weyn iyo wa sagiirahateeda yar. wa adaa'u jamiici alfaraa'idi faraa'isha oo la guto wey waxaa ilaahay subxaana watacaala kugu fardeelay yasiirahateeda fudud iyo wa casiirahateeda culus, teeda yar iyo teeda weyn ood gudato. waan gartay wa tarku dunya adduunya oo laga tago weeye calaa ahlihaa ehelkeeda looga tago qaliilahaa teeda yar adduunyada. waan gartay iyo wa kahiiraha teeda badan adduunyada waa inaad iskaga tagto teeda yar iyo teeda weyn. wa can luqmaan waxaa laga wariyey wa can luqmaan alxakiim annahu qaala wuxuu yidhi libnihi wiilkiisaa wuxuu yidhi yaa bunayo wiilkaygiiyow ina annaasa dadka halaathatu ahlaathin saddex gobol wey saddex qaybood wey. thuluthun lilaahi saddex meelood meel ilaahay baa iskale. wathuluthun linafsihi saddex meelood meelna naftiisaa iskale. wathuluthun saddex meelood meelna
lidduudi tixire ayaa iska leh fa amaa maa huwa lilaahi waxa ilaahay uu leeyahay fa ruuxuhu ruuxdiisa weeye wa amaa maa huwa linafsihi naftiisa waxa u sugnaadayna waan gartay fa camaluhu camalkiisa weeye wa amaa maa huwa lidduudi waxa tixiriga u sugnaadayna fa jismuhu jirkiisa weeye waan gartay wa can caliyin karama allaahu wajhahu waxaa laga wariyey annahu qaala wuxuu yidhi halaathun saddex yazidna waxay ziyaadiyaan filxifdi xifdiga waan gartay wayudhibna balqama balqamka iyo qoyaanka afkana way tagsiyaan assiwaaku cadayga iyo wasawmu soomka iyo wa qiraa'atu lqur'aani waa cadayga iyo soomka iyo qur'aankaoo la akhriyo intaa xifdigana way siyaadiyaan afka qoyaanka iyo dharaarka iyo balqamkana way zuuliyaan wa can kacab alaxbaariy saasaa qoran wa can kacab alaxbaariyi waxaa laga wariyey alxusuunu dhufays lilmu'miniina xaal uu u sugnaaday mina shayaadiina shayaadiintana ay ka gelayaan oo ay iskaga difaacayaan halaathun saddex weeye almasjidu masjidka xisnun waa dhufays wadikrullaahi ilaahay xuskiisana xisnun waa dhufays wa qiraa'atu lqur'aani qur-aankaoo la akhriyana xisnun dhufays weeye wa can bacdi alxukamaa waxaa laga wariyey annahu qaala halaathun saddex waan gartay min kanzillaahi tacaalaa ilaahay kaydkiisa weeye ajir fara badan ayaa laga helaa oo akoonkaadii aakhiro ayaa kuu buuxsamaya inta aad ku safrayso alfaqru faqriga faqiirtinimada iyo walmaradu jirada dee in faqiir haddaad tahay ilaahay baa keenay waa inaad ku sabarto jirada sidoo kale wasabru iyo sabarka intaas waxaa weye waa kansiga aakhara wey wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa asigii abi baa allaha ka raalnooday xiina su'ila markii la weydiiyey waan gartay maa khayrunaas maa khayrul ayaami maalmaha teebaa ugu khayr badan wamaa khayru shuhuuri bilahana bisheebaa ugu khayr badan wamaa khayrul acmaali acmaalna waan gartay camalkeebaa ugu khayr badan faqaala wuxuu yidhi khayrul ayaami maalmaha maalinta ugu khayrka badan yowmuuljumcati maalinta jumcada weeye saasuu ku jawaabay wa khayru shuhuuri bilaha bisha ugu khayrka badan shahru ramadaana bisha ramadaan weeyuu yidhi wa khayrul acmaali acmaasha camalka ugu khayrka badan acmaasha ugu khayrka badan alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta wey liwaqtihaa yacni waqtigooda lagu tukado famaata wuu dhintay ibnu cabbaas fii daalika alyowmi maalintaas maalin jimcay ahayd baa layidhi markuu jawaabahan bixiyey waan gartay maalintaa iyada ayuu dhintay famadaa waxaa tegey calaa daalika arrinkaas halaathu ayaamin saddex maalmood baa tagtay su-aalihii markuu ka jawaabay waxaa weeye waxaa ka soo wareegtay saddex maalmood fa balaqa waxaa gaaray caliyan cali waan gartay radia allaahu canhu allah ka raali noqdee anna ibnu cabbaas radia allaahu canhuma allah ka raali noqdee su'ila in la weydiiyey calaa daalika arrinkaas oo maxay tahay arrinka la weydiiyey maalinta maalmaha ugu khayrka badan bisha bilaha ugu khayrka badan acmaasha maxay ahaday camalada acmaasha ugu khayrka badan waan gartay oo fa ajaaba uu ku jawaabay bidaalika arrinkaas maalmaha jumca ugu khayr badan bilahana bisha ramadaan acmaalna salaadaha waqtigooda lagu tukado inuu jawaabtaas ka bixiyey fa qaala caliyun cali wuxuu yidhi radia allaahu canhu allah ka raal noqdeen low su'ila alculamaa'u culammada haddii la weydiiyo walxukamaa'u xukamadana la weydiiyo walfuqahaa'u fuqahadana la weydiiyo waan gartay min almashriqi qorax ka soo bax ka bilow ila almaqribi ku gee intaas culammada iyo fuqahada iyo xukamada intaa ku jirta haddii la weydiin lahaa la ajaabuu bimidli maa ajaaba bihi ibnu cabbaas jawaabtii uu ka bixiyey su'aalahaas
ayay ka bixin lahaayeenay ku jawaabi lahaayeen. ilaa annii anigu aquulu waxaan leeyahay inna khayra alacmaali acmaasha midda ugu khayrka badan maa yaqbalu allaahu tacaalaa minka, camalka ilaahay uu kaa macnaha uu kaa aqbalo kaabaa camal ugu khayrka badan. haddee camalo fara badan oo ilaahay uu kaa aqbalin haddee khayr kuuma leh. camalka midka addoonkiisa uu ka aqbalo kaasaa ugu khayr badan camal. wa khayru shuhuuri bilaha bisha ugu khayrka badanna maa tatuubu fiihi ila allaahi towbatan nasuuxan. maa tatuubu fiihi yacni wakhtigii iyo bishii aad dhexdeeda ku toobad keento ilallaahi ilaahay aa u toobad keento towbatan toobad taasoo nasuuxan dhab ah. bishii aad sidaa towbadda bisha aad kula dhex imaado yaa bilahana ugu khayr badan. anigu sidaasaan dhihi lahaa buu yidhi. wa khayrul ayaami maalmana maalinta ugu khayrka badan maa takhruju fiihi waan gartay maa takhruju mid ay soo baxdo waaye fiihi dhexdiisa min addunyaa adduunyada xaggeeda. maa takhruju maalinta aad ka baxdo fiihi dhexdiisa min addunyaa adduunyada aad ka baxdo ilallaahi ilaahay xaggiisa u baxdo mu'minan xaal aad tahay billaahi ilaahay rumaysan. mu'minan xaal aad tahay mid rumaysan billaahi ilaahay rumaysan. maalinna waxaa ugu khayr badan baan dhihi buu yidhi maa takhruju fiihi maalinta aad ka dhammaato ood ka baxdo min addunyaa adduunyada xaggeeda ilallaahi ilaahay xaggiisa aad u dhammaato ood u baxdo mu'minan xaal aad tahay mid rumaysan billaahi ilaahay. wa qaala ashaaciru shaacirkii wuxuu yidhi min baxri basiid amaa taraa kayfa yublina aljadiidaani wanaxnu nalcabu fi siri waiclaani latarkananna ila addunyaa wazukhrufiha faina awطaaniha laysat biawطaani wacmal linafsika min qabli lmamaati falaa taqrurka kaaharatu asxaabin wa ikhwaani. marka wuxuu yidhi amaa taraa miyaadan arkaynin kayfa sida yubliinaa ay noo baaliyeynayaan ay noo baabi'inayaan aljadiidaani labada cusub waa maalinta iyo habeenkii. wa naxnu annagana nalcabu aan iska ciyaarayno fii sirin wa iclaan yacni si muuqata iyo si yacni qarsoon baan iskaga ciyaarin oon danba ka lahayn maalmaha iyo habeenada mar walbaba nagu cusubeenna maray. laa tarkananna ha u iilan ila dunyaa adduunya xaggeeda ha u iilan wazukhrufihaa adduunye iyo birbiriqeeda ha u iilan waaye. fa inna awطaanihaa waddankeeda laysad ma ahanin biawطaani waddan lagu nagaanaya ma ah adduunyada. wacmal u camalfal linafsika naftaada min qabli lmamaati intaadan dhiman. oo falaa taqrurka ha ku kadsoomin kahratu asxaabin yacni asxaab badan ood leedahay wa ikhwaani iyo walaalo ood leedahay ha ku kadsoomin. waan gartay. waqiila waxaa layidhi idaa aradta haddii aad doonaysid maya idaa araada allaahu hadduu ilaahay la doono bicabdin addoon khayran khayr haddii uu la doono faqahahu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinka ayuu fahansiiyaa waay. ilaahay addoonkiisa addoon asiga addoommadiisa ka mid a haddii khayr uu la doono diinta ayuu fahansiiyaa. wazahadahu wuxuu ku zaahidiyaa fi dunyaa adduunyada ayuu ku zaahidiyaa. wabasarahu wuxuu tusiyaa bicuyuubi nafsihi naftiisa ceebaheedana wuu tusiyaa waay. wacan rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna waxaa laga wariyey annahu qaala rasuulku inuu yidhi xubbiba waa la ijeclaysiiyey ilaya xaggayga min dunyaakum adduunyadinna xaggeeda 3 saddex baa laiga jeclaysiiyey addiibu waxyaabaha udgoonka waannisaa'u haweenka wajucilat waxaa laga yeelay quratu cayni waxay ishayda ku qabowsato fi salaati salaadaha dhexdoodaa laga yeelay. wa kaana macahu nebiga maciisa waxaa asxaabuhu asxaabtiisa juluusan xaal ay yihiin kuwa fafadhiya. faqaala abuu bakrin baa wuxuu yidhi abubakrin asidiiq radia allaahu tacaala canhu sadaqta yaa rasuula allahi rasuul allow run baad sheegtay.
waxubiba waxaa la ii jeclaysiiyey ilaya xaggayga min addunyaa adduunyada xaggeeda waxaa liga jeclaysiiyey 3 saddex buu yidhi annadaru fiirfiiro waan gartay ilaa wajhi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wejigiisa mar walba inaan fiiriyo oo nebiga saa u hor fadhiyo ayaa la ii jeclaysiiyey wa infaaqu maali calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam maalkaygana inaan rasuulka ku bixiyo ayaa la ii jeclaysiiyey waan gartay wa an takuna bnatii gabadhayda inay ahaato taxta rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka mid la joogto yacni nebiga rasuulka ilaahay mid zawjo u ahaata inay ahaato gabadhaydana waa la jeclaysiiyey buu yidhi faqaala cumar radia allaahu canhu wuxuu yidhi sadaqta yaa ababakar ababakar run baad sheegtay waxubiba ilaya waxaa la ii jeclaysiiyey aniga min addunyaa adduunya xaggeeda waxaa laiga jeclaysiiyey buu yidhi 3 saddex alamru bilmacruuf macruufka oo dadka la faro wannahyu cani ilmunkari munkarka oo dadka laga reebo wathawbu khalaqu yacnii marada duuga-ana waa la jeclaysiiyey buu yidhi faqaala cuhmaan wuxuu yidhi radia allaahu canhu sadaqta yaa cumar cumarow run baad sheegtay buu yidhi waxubiba ilaya min addunyaa 3 anigan adduunya 3 baan ugu jeclahay buu yidhi ishbaacu ljiicaan midka baahan oo la dherjiyo wa kiswatu lcuryaan kan yacni qaawan oo la dhareeyo wa tilaawatu lqur'aani qur-aanka oo la akhriyo faqaala wuxuu yidhi caliyun radia allaahu canhu allah ka raali noqdee sadaqta yaa cuhmaan cuhmaanow run baad sheegtay waxubiba ilaya anigana waxaa la ii jeclaysiiyey min addunyaa adduunya xaggeeda 3 saddex baa la ii jeclaysiiyey khidmatu lidayf alkhidmatu lidayf martida oo loo khidmeeyo waasawmu fi sayf qarraxeedka oo la soomo waadarbu bisayf gaalada oo yacnii seef qoorta lagaga jaro oo yacni jihaad fii sabiilillaahi loo taagnaado yaa la ii jeclaysiiyey fa baynamaa hum kadalik wakhti ay sidaa ku jiraan oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa ragga maxay yidhi min kibaari saxaaba ay saddexdaas isdhaafsanayaan id wakhtigaasba jaa'a waxaa yimid jibriil ayaa yimid wa qaala wuxuu yidhi arsalaniya allaahu tacaalaa tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ii kiin soo diray lamaa samica maqaalatukum markuu araahiyadiinna uu maqlay hadalladiinna markuu maqlay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isoo diray oo xaggiin uu ii soo diray wa amaraka yaa rasuula allah rasuulkii allow wuxuu ku amrayaa an tas'alanii inaad i weydiiso camaa uxibbu waxa aan jeclahay in kuntu min ahli ddunyaa haddii aan ahay ahlu adduunyada faqaala wuxuu yidhi maa tuxibbu maxaad jeceshahay in kunta min ahli ddunyaa haddii aad ka mid tahay dadka ahlu adduunyada maxaad jeceshahay jibriilow saasuu yidhi rasuulkan calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi irshaadu daalliina dadka lunsan oo yacnii waddada khayrka ka lunsan oo la hanuuniyo oo yacni xaqa lagu hanuuniyo waan gartay wa mu'nasatul ghurabaa'i alqaanitiina iyo dadka qariibka ah ee qaanitiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa u go'o waan gartay dadkaas oo la weheliyo lala joogo wa mucaawanatu ahlilciyaali iyo in la kaalmeeyo kuwa ahlu ciyaalka ah almucsiriina haddana culculusoo waxba aan haysan dadka in la kaalmeeyo la gacan qabto ayaan jeclahay buuri wa qaala jibriilu wuxuu yidhi yuxibbu rabbi wuxuu jecel yahay waan gartay yuxibbu rabbu lcizati jalla jalaaluh rabbulciza wuxuu jecel yahay min cabiidihi addoommihiisa xaggooda wuxuu jecel yahay 3 khisaalin 3 khislo 3 calaamo badlulistitaaca daacadii oo lagu bixiyo yacni qofka uu ku bixiyo awooddiisa waalbukaa'u cinda annadaama iyo oohin lan ooyo markii dembiga laga qoomamaynayo waxaa weeye waa shartu min shuruudi tawba markuu dembigii ka qoomamaynayo inuu addoonkii oohin raaciyo waasabru cinda alfaaqa baahida agteeda oo la samro wa can bacdi alxukamaa waxaa laga wariyey man ictasama ruuxii waan gartay isku halleeyo
waan gartay bicaqlihi caqligiisa isku halleeyo waan gartay ama cuskado dalla uu dhumaa waayo qofkaas waman istaqnaa qofkii isku qani yeelo oo ku kadsoomo bimaalihi maalkiisa oo wax ismoodo qalla uu yaraadaa way waman caza qofkii ku cizoobo bimakhluuqin makhluuq dalla wuu duloobaa wacan bacdilxukamaa waxaa laga wariyey hamaratu lmacrifati macrifada iyo aqoonta midhaheeda halaadu khisaalin 3 khislo we alxayaa'u xishood oo min allaahi ilaahay xaggiisa laga xishoodo waalxubbu jeceyl oo fillaahi ilaahay dartii wax loo jeclaado waalunsu billaah ilaahay oo la weheshto macrifada yacni midhaheeda waa un 3daas ilaahay baad ka xishoon waxaad jeclaanaysa alla dartii baad u jeclaan waxaad nacaysana alla dartii ilaahay baadna wehel ka dhiganaysaad weheshanaysaa wacan الnabiyi sala allahu calayh wasalam nabigeenna waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi almaxabbatu jacaylku asaasulmacrifati macrifada aas-aaskeeda weeye waalcifatu dhowrsanaantana calaamatulyaqiini yaqiinta calaamadeeda waaye wara'sulyaqiini yaqiinta madaxeedana attaqwaa alla ka cabsi weeye waaridaa bitaqdiirillaahi ilaahay qadarkiisa oo lagu raali noqdo wacan sufyaan binu cuyayna waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allah ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi man axabba allaahu qofkii alla jeclaado axabba man yacni duul ayuu jeclaadaa axabbahu allaahu ilaahay uu jecel yahay qofkii alla jeclaado wuxuu jeclaadaa duul alla uu jecel yahay oo yacni dadka culummada ah iyo saalixiinta ayuu jeclaadaa waan gartay waman axabba ruuxii jeclaado man duul oo axabbahu allaahu ilaahay uu jecel yahay tacaalaa sarreeyey waan gartay qofkii jeclaado wey culummada iyo saalixiinta dadkaa wanaagsan oo ilaahay uu jecel yahay qofkii jeclaado axabba wuxuu jeclaadaa maa shay axabba fillaahi tacaala ilaahay dartii u jeclaadeen oo camalka suuban ah oo wanaagga khayrka ah ay ayagu jecel yihiin ay ku hormareen kaasuu jeclaadaa waman axabba ruuxii jeclaado maa shay axabba fillaahi ilaahay dartii ay u jeclaadeen oo loo jeclaaday axabba wuxuu jeclaadaa allaa yacrifahu nnaasu dadku inayna ogaanin inayna dadka ogaano dadka iska qariyo kaas saasuu jeclaadaa وعن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم